maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun ku riday milkiilaha hay'adda Sahan Research kadib markii dambi lagu helay isaga iyo hay'addiisaba. Matt Braden oo ah milkiilaha hay'adda Sahan Research ayaa maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku heshay eed uu ku soo oogay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, taasi oo ah in Matt Braden uu faafin jiray siraha qaranka, waxayna maxkamaddu maanta ku xukuntay 5 sano oo xabsi ah. sidoo kale hay'adda Sahan Research ay maxkamaddu ka mamnuucday in dib dambe ay uga howlgasho gudaha Soomaaliya kadib markii lagu helay dambiyo culus oo qatar ku ah sirta qaran. Matt Braden ayaa horey waxa xeer ilaalintu ay uga soo oogtay dambi ah in uu faafin jiray sirta qaranka, iyadoo sidoo kalena hay'addiisa la sheegay in ay qatar ku tahay dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka howlgala hay'ado laga leeyahay wadamo shisheeye, kuwaasi oo la sheegay in qaarkood ay qatar ku yihiin sirta qaranka, inkastoo haatan xukun 5 sano ah lagu riday milkiilaha Sahan Research. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiqadar Maxamed Xasan ayaa ku dhawaaqay xukunka dacwadda loo haystay hay'adda Sahan Research iyo agaasimaha hay'adda Matt Braden. maxkamaddu markay dhageysatay gabagabada dhinacyada dacwadda ee waafaqsan qodobka 119 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markay aragtay in shirkadda Sahan laga diiwaan geliyay Soomaaliya 2 mar oo kala ahayd 2016 iyo 2018 howsheeda rasmiga ah oo ahayd cilmi baaris ay ka sameynayso dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada, nabadgelyada, waxbarashada iyo caafimaadka. maxkamaddu markay aragtay warbixinta ay shirkadda Sahan qortay oo wax xiriir ah aan la lahayn arrimihii ruqsadda loo siiyay, kagana weecatay howshii loo fasaxay una weecatay howlo kale oo aysan shaqo ku lahayn, maxkamadda waxaa u caddaatay 1 in adeegsana Matt Braden ku dhashay UK, haysta dhalashada Canada, degan Kenya, ahna milkiilaha Sahan, lagu helay eedda ku xusan qodobka 199 faqrada 1 ee xeerka ciqaabta si waafaqsan qodobka 123 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamadda iyadoo raacayso qodobka 124 faqrada 1 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay sidoo kale ku heshay eedeysana Matt Braden qodobada 215 faqrada 1 iyo 328 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. sidoo kale si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku weysay eedeysanaha Matt Braden qodobada kale ah 200 faqrada 1 201 faqrada 1 204 faqrada 1 205 faqrada 2 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. xukunka maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku xukuntay dambiile Matt Braden ku dhashay UK, degan Kenya 5 sano oo xarig ah. maxkamaddu waxay sidoo kale ka mamnuucday hay'adda Sahan inay ka howlgasho geyga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 26 bishii 10aad 2021. cidii aan ku qanacsanayn waxaa u furan racfaan muddada shalay oo ogol yahay. wabillahi tawfiiq. maxkamaddan waa xiranta.